ciyaartoyda gabdhaha Soomaaliyeed oo ka qayb galaya ciyaar kubadda cagta oo markaa lagu maamusayo xuquuqda haweenka ayaa gaaray magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika halkaasi oo si weyn markaa loogu soo dhaweeyay. Soomaaliya way tagto waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika gabdhaha Soomaaliyeed ee ka qayb galaya ciyaaraha kubadda cagta ee lagu maamuusayo xuquuqda haweenka kuwaas oo ka dhici doona waddankan Koonfur Afrika. wafdiga gabdhaha ciyaarta ka qayb galaya oo gaaraya 26 qofood ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed Batuula Axmed Gaballe iyo gudoomiyaha gabdhaha kubadda cagta ee Soomaaliyeed Shahiima Salal Maxamed. ciyaaraha ayaa waxa ay dhex mari doonaan 4 wadan oo Afrikaan kuwaas oo kala ah South Africa, Soomaaliya, Zimbabwe iyo Zambia. kadib markii ay garoonka ka soo degeen gabdhaha iyo wafdigii la socday ayaa waxaa loo gudbiyay halka ay ka degayaan magaalada Cape Town inta ciyaartu socoto. waxaana warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay gabdhaha Soomaaliyeed ee u ciyaaraya qarankeena Soomaaliya oo uu ka mid yahay Abdullaahi Buura Cabdulle iyo u qaybsanaha safaradda Soomaaliyeed Abdullaahi Cali Xasan. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa galabta koox gabdhaha Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka yimid oo matalaya waddanka Soomaaliya halkan u yimid ciyaaro. waxaan leenahay ayagii wafdigoodaba soo dhawaada Cape Town, ku soo dhawaada dadkiini oo aad idin jecel oo gacmo furan idin ku soo dhaweynaya. waxaan idin rajaynaynaa guulo wacan. waxaan diyaar u nahay inaan wax walba idin ka caawino inta Cape Town joogtaan, haddii aan lahayd taageero, haddii aan lahayd facilities oo walba waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada walaalayn. magacayga waa Abdullaahi Buura Cabdulle. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa maanta aan ka soo qayb galo soo dhaweynta gabdhaha Somali National Football oo Zambia, Soomaaliya, South Africa iyo markino wadamada intaas markino ku ciyaarayaan wadankan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan mar kale ku soo dhaweyno airport International Airport Cape Town. waxaan garabkiina taaganahay insha Allah taala hadii alla yiraahdo Soomaaliya guul. maanta waxaa sharaf noo ah in aan magaaladan Cape Town South Africa ku soo dhaweyno kooxdii ugu horeysay ayaan leeyahay gabdho Soomaaliyeed oo waddankeena Soomaaliya ku matalaya kubadda cagta oo ciyaaro socon doona isbuuc iyo wax la jira ilaa 10 December waddankan kaga qayb gali doona inaan halkan ku soo dhaweyno kooxdaas oo loo yaqaano Golden Girls loo yaqaano oo aad arkaysaan gadaashiir taagan gabdhaha qurqurxda badan. runtii waxaa jeclaan lahaa inaan iraahdo laba shayba waxa ku tiil cajiib waliba 3 shay waay. waxaan ogaalkayga 15 sano joogaa South Africa waxaa tiin groupka ugu horeeyay oo sporti waddanka u yimidaatay. waxaa tiin groupka ugu horeeyay oo gabdho ah oo ayagana sport u yimidaatay. waxaa kaloo tiin groupka ugu badnaayna waa tiin oo isla socdaatiin. marka groupka idinka numberkiina gaaraya 26 qofood wali ma dhicin. maasha Allah wafahantay maxay tooday gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Marwo Batuula Axmed Gaballe maxay tooday aan salaanta maaragtay koow ka dhigo iyo gudoomiyaha maaragtay kubadda cagta gabdhaha Golden Girls Shahiima Salal Maxamed. waxa waa shaqo fiican wada aniga gabdhana way joogaan waliba waxa idin raacinaa hadii ilaahay ku ruuyn gabdhayga iyaga 12 sano kadib ay xalay yimaadeen oo waxay ka yimaadeen Norway. maasha Allah haddii soo raacaan rabeen la ku wadaalayeen laakiin waxay balan qaadeen inay ciyaarta imaan doonaan ka doonaan. mar gabdhiyo oo dhan maxay toodo noo matalaysaa garabkaaga taaganahay insha Allah. waxaan rabaa inaan maxay toodo markaan ku wareejiyo gudoomiyaha kubadda cagta gabdhaha kubadda cagta Golden Girls ku wareejiyo kadibna ay gudoomiyaha ururka haweenka ay ku sii wareejiso.
بسم الله مقعي شيماء سلال محمد قدوميها جولدن جارلز سبورت سنتر gabadha oo ugu horeysa asaasta kooxda kubadda cagta Soomaaliyeed maanta aad u faraxsanahay inaan ka imaano ciyaaraha ugu horeeya oo international ka qayb gali doono gabdhaha inaan soo wado oo ku dhiirigeliyo aad ugu faraxsanahay iyo gabdho kale nala socdaan oo kamid ah gabdho ka yimaadeen London ayagana inoo matalaya Golden Girls aad ugu faraxsanahay dadaalka juhdigaana soo marnana ma ahan mid oo aad u yar oo aad u dib badnaay laakiin si alxamdulillah maanta meesha rabno waa joognaa qarankiya matalona haweenka Soomaaliyeed matalona aad waxa u faraxsanahay in waxaan rajeeyo doonaa in guul Soomaali uu soo hoyin ciyaaraha waxa ka qayb galaynaa afar dal waaye oo kamid ah Zambia Zimbabwe South Africa anaga ku afar Soomaaliya marka waxa ciyaarta human rights cup marka xuquuqda haweenka meeshaas ay ku soo aadaa xuquuqda insaanka marka waxa rajeynaa insha Allah guul السلام عليكم مقعي واخر اسماعيل waxa ka imaanay maanta London in England Somali banahay muslim banahay oo ku dar maanta waxa imaanay ina ka qayb qalno kooxda ugu horeyso oo Soomaalida ciyaarayo insha Allah oo naga ah oo gabdho fiican oo qurux badan oo si fiican u ciyaar karo insha Allah shay ma wax badan sameysay oo كتعبت والله بالله شقف في عبي ودا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku faraxsanahay anagoo gabdho Soomaaliyeed hooyooyinkii oo la socda inaan ka soo degano magaalada Cape Town si aan uga qayb galno tartanka ciyaaraha gabdhaha Afrika oo aan rajeynayno hadii aan ay gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinkoodii inaan guusha koobka qaadi doono insha Allah ta'ala waxaan ku faraxsanahay in gabdhihii Soomaaliyeed iyagoo matalaya gabdhaha Soomaaliyeed ay ka kala yimaadeen qaaradaha Yurub iyo Soomaaliya inay ka yimaadeen taana waxay ku tusaysaa Soomaaliya inay horey u martay oo adduunka ay la tartamayso oo meeshaan ay ka turjumayso gabdhaha maanta u soo banaan baxay oo kharashka tigidhka iska soo bixiyay oo qaarkood soo deynsaday oo halgan dheer soo galay inay matalaan magaca Soomaaliyeed oo calanka Soomaaliya kor u qaadaan tusiyaan adduunka Soomaaliya inaysan ahayn goob la isku dilo ay tahay goob fan ciyaaro horumar iyo bini'aadanimo ay taalo waxaana ka turjumaya gabdhaha yaryar ee quruxda badan ee u soo saftay inay matalaan magaca Soomaaliya shanta qaaradood ay ku nooshahay maanta waxay gaartay heer ay iyadu isu xil saarto inay magaca Soomaaliyeed kor u qaado gabdhaha Soomaaliyeed dalka markuu burburay iyaga sabata bixiyay haddana ayaga ka shaqeynaya horumarka dalka oo u taagan Soomaaliya dib u noqonayso Soomaaliya way tagto Cape Town